Hawa adiga aniga waan ku soo dabaraacay 3 maalmood ayaan gurigaaga joogay wax ziyaado oo aad samaysid ma arkin ee maxaad samaysaa ii sheeg wallaahi wiilkayga wax aniga aan sameeyo male ilaa wixii adiga aad iigu aragtay maahine haa waxaan anigu ku jahwareeray waa kaas sababtoo ah ma kuga arkin wax kale oo aad samaysid ilaa iyo wixii anaga aan samayno ma ahe sidee ayaad jannada ku mutaysatay wiilkayga aniga xataa waayaa banahay rasuulka sala allahu calay wasalam oo igu bushaareeyey janno aniga camal oo zaa'idba ma sameeyi dadkii wixii sameeyaan la sameeyaa adeer adigoo jahwareersan ayaan kaa tegayaa anigoo jahwareersanna waan imid meeshaan maalin asxaabta oo ay ag fadhiyaan nebiga sala allahu calayh wasalam masjidka dhexdiisa nebiga asxaabta wuxuu dhahay hadda waxaa soo geli doonaa masjidka ninkaasni waa ahluljanna saxaabadii waxaa la yaabeen ninkan oo masjidka soo galay ninkaani ma kasaayaan saxaabada subxaan allah waa kuma ninkan oo jannada loogu bishaareeyey qofkaan weligeena ma arkin jannane waa galaa ninkii masjidka waa ka baxay cabdullaahi bin camar bin caas ayaana ninkii sii daawanayey maxaad firinaysaa cabdulaahi waxaan rabaa aniga inaan ogaado qofkan qofka uu yahay maxaa yeelay nebiga waxa uu u dhahay qofkan waa ahluljanna ilaahayaan ku dhaartaya qofkaan annagoo dhan ma kaseeno laakiin anigaa ogaan doono qofkan qofka uu yahay haddani maalintii labaad nebiga sala allahu calayh wasalam asxaabta wuxuu dhahay qof ayaa soo geli doonaa qofkaasni waa ahluljanna asxaabta dhinacyadooda ayay fiiriyeen waxay u muleenaayeen nin kale laakiinse nin kale ma ahanee waa ninkii oo isla shalito ahaa haddani ninkii waxaa imaaday maalintii saddexaad ilaahayow magacaaga ayaan tala saartay ilaahayow waxaan ku weyddiistaa fadligaaga ilaahow iga ilaali shaytaanka cabdulaahi sugba ma ku sugi kari intee u socotaa qofkan ayaan dabagala ninkaan maxaa ku dawageliyey waa inaan ogaadaa sababtuu jannada u galaayo qofkan wuxuu samaynayo anigana waa inaan sameeyaa si aan jannada u galo sidii adiga wax u fikirooysid asxaabta qof u fikirooyo ma leh alxamdulilaah aniga fikirkaas ayaan helay maanta dhan gadaashiis le ma soconaysa adiga haa gadaashiisa ayaan soconaa waa inaan ogaadaa meeshuu u socdo anigana waan ku soo raacaahe maya ha i soo raacin aniga keligii inaan dabagalo waayo u gaadi qofkaan sirtiis haddii heshid anigana ii sheeg lan waayo waa kuu sheegaa laakiin adigana qof kale ha u sheegin qofkan inaan dabaraacoyo cabdulaahi balan waaye qof ma uu sheegaay ilaahay waxaan ka baryaa inaad ku guulaysato qofkaan oo arrimahiisa soo ogaato بسم الله ولجنا بسم الله وخرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ma heli karo meel aan ku hoydo maxaa yeelay waxaan ku arkay adigoo ka soo baxay masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam marka gurigaaga ma soo degi karaa ilaa iyo meel kale aan ka helayo ها وسدقي كرتا سوقل سودواو assalaamu calaykum guriga qof meela degano aniga keligayga ayaan deganahay ilaahay ha kuu barakeeyo gurigaaga aamiin hadda waa isla cuntahaynaa laakiin cuntadan waa cunto qof keliya uu cuni karo miyaanan maqlin rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu dhahay cunto oo hal qof cunaayo laba qof waa ku cuni karaan cunta laba qofni waxaa kaafiyaa 4 qof waa runtiisa nebiga sala allahu calayhi wasallam bismillaah بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله cuntaday wuu cunay waani dhameeyey laakiinse wax oo sir ahni ma helin alxamdu lilaah الحمد لله الذي أطعمنا وسخانا وجعلنا المسلمين wiilkayga soo bax qolka adiga seexan lahayd ayaan ku geenayaa cabdullaahi 3 maalmood ayuu ninkii gurigiisa joogay sababta u joogayna waxay tahay wuxuu rabaa inuu ogaado nebiga sala allahu alay slam oo dhahay ninkan ahluljanno ayuu noqon doonaa
cabdullaahi ninkan wuxuu daawanayay haween walba salaada leelka markii la gaaro ilaa iyo fajirkii subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi rabbi alcadiim subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu allahu akbar cajiib waaye 3 habeen ayaan qofkan arkoyaa hal habeen xataa uu salaatuleyl dugtay ma arkin salaad cisha ayuu soo dukanaa gurigiisuu imaanaa waa seexanaa haddana fajirkii ayuu soo kacaa wuu dukanaa waa seexanaa oo ka tasbiixsan سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله wiilkayga waa wasakh aadahaynaa masaajidkaan aadinaa salaada fajiraan soo tukahayna inakeen أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير cabdullaahi waa maalintii saddexaad oo joogo qofkan gurigiisa qofkaani weli su'aal ma weydinin sababta oo ku mutaystay jannada oo gelaayo maxaa yeelay maanta waa maalintii ugu dambaysay oo guriga oo joogo maxaa yeelay marti waa ilaa iyo 3 beri bukaadi adeer waan ku caawinayaa maya wiilkayga waa mahadsantahay adiga marti ayaad ii tahay laakiinse martidanimada maanta ayay ku ag tahay waa dhammaaday waad ku mahadsan tahay halaha aad ii martigeliday allaha ku nabadgeliyo wiilkayga adeer inta aanan bixin waxaan rabaa inaan wax ku weydiiyo waad i weydiin kartaa wiilkayga maalin anagoo masjidka aan fadhino nebiga wuxuu dhahay nin ayaa soo galaya ahluljanno ah ninkana wuu soo galay wuu dukaday waana baxay kadib maxaa dhacay 3 maalmood ayuu nagu celcelinayay qof ayaa imaanaya qofkaasna waa ahluljanna marka aan qofkaas fiirinana maalin walba waa isla qofkii oo keliya subxaana allah ma rabtaa inaad ogaatid ninkaas qofka uu yahay haa waan rabaa inaan ogaado adeer qofkaas qof kale ma ahan ee waa adiga ya maasha allah aniga miyaaba qofkaas alxamdu lilaah haa waa adiga aniga waan ku soo dabaraacay 3 maalmood ayaan gurigaaga joogay wax ziyaada oo aad samaysidna ma arkin ee maxaad samaysaa ii sheeg wallaahi wiilkayga wax aniga aan sameeyo male ilaa wixii adiga aad igu aragtay maahine haa waxaan anigu ku jahwareeray waa kaas sababtoo ah ma kuuga arkin wax kale oo aad samaysid ilaa iyo wixii anaga aan samayno ma ahe sidee ayaad jannada ku mutaysatay wiilkayga aniga xataa waayaa banahay rasuulka sala allahu calay wasalam oo igu bushaareeyey janno aniga camal oo zaa'idba ma sameeyi dadkii wixii sameeyaan la sameeyaa adeer adigoo jahwareersan ayaan kaa tegayaa anigoo jahwareersanna waan imid meeshaan run ahaantii waxaan rabay inaan kaaga saaro wareerkaaga laakiin sidii aniga aan ku sheegi lahay wax zaa'id aan sameeyo male wiilkayga laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim ogaada wiilkayga aniga habeenkii waxaan ku seexdaa anigoo qalbigayga saafi ah oo qalbigayga xumaan ku jirin xasidnimo aan ku jirin oo muslimiin wax ay sheegtaan dhan qalbigayga xumaan u qabin saas ayaan ku seexdaa habeenkii yaa allah waa arrintaas waxa aad ahluljannanimada ku mutaysatay adeerkayga macaanow filimkan waxaa lagu turjumay stuudio saf oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baado waxaan idin soo turjumay walaalkiina aslax aba safi like, share, comment.